dhegaysta ama daawade ku soo dhawow qaybtii shanaad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. sheekadan waa qiso dhab ah oo dhacday waxaana qaybtii afraad ay noo joogtay Xamse oo gaaray qorshe la xiriira sida uu xiriir ugu bandhigan lahaa Shamso. waa subax hore waxaa soo dhacay taleefanka Xamse balse xilligaas isaga waa uu hurdayay. markii uu dukaday salaada subax kadib ayuu ku celiyay lambarkii soo wacay balse waxaa taleefanka ka qabatay Shamso waxaana ay ku tiri aboowe lambarkan aniga ayaa ka soo wacay. waxaan doonayaa inaan ku toosiyo salaada subax balse maadan iga qaban mobilka. waan ogaa inaad isweydiinayso lambarkan cusub ee aan ka soo wacay. waxaa lambarkan iska leh hooyo, aniga mobilkayga lacag maysan ku jirin. intaa markii ay Shamse tiri waxaa hadalkeeda ay ku soo gabagabayso howlbaa ii taallo ee subax wanaagsan bye bye. Xamse u hamuun qabay codka Shamso welina u muuqdo qof aan ka dhergin hadalkeeda ayaa yiri waayahay Shamso, inkastoo aan jeclaa inaan codkaaga maqlo wax badan. Xamse ayaa durbo guda galay isku diyaarinta iskuulka waana uu labistay maadaama qorraxda ay soo bixisay xilligaasi. subaxaas isagoo faraxsan ayuu baxay oo waxa uu aaday iskuulka waxaana maalinkaa laga dareemayay wejigiisa in farxad gaar ay ka muuqatay. Shamse dhankeeda iyadana waxay aaday iskuulka balse waxay guriga kaga tagtay moobilkeeda oo maalinkaa ma aysan qaadan. Xamse ayaa inta bareega ama waqtiga yar ee kooban ee fasaxa lagu guda jiray taleefanka Shamse wacay laakiinse moobilka lagama qaban. Shamse oo iskuulka laga soo daayay ayaa waxa ay timid guriga waxaana ay aragtay message call-ka ama wicitaanka Xamse laakiinse taleefankeeda lacag ay dib kaga wacday isaga ma aysan ugu jirin. Xamse intuu wadada soo socday oo gurigiisa u soo socday isagana maadaama iskuulka laga soo daayay waxa uu isweydiinayay su'aalo badan oo la xiriira maxay taleefanka kaaga qaban weysay Shamse iyo sidoo kale maxaa ku dhacay. qof kasta oo marxalad jaceyl wajahaya waa mid mararka qaar ku amuur wareeraya xaaladda markaas qabsanaysa balse Xamse waxa kaliya uu ahaa isaga wiil nolosha jaceylka ay u bilaabanaysay isla markaana uu ku cusbaa xiriir. balse markii uu guriga u tagay ayuu waxa uu wacay taleefankii Shamse mar kale laakiinse waxaa durba ka qabatay Shamse oo ku tiri Xamse iga raali noqo haday mar ayaad isoo wacday balse mobilka xaafadda ayaan kaga tagay. Xamse ayaa isagana qaatay raaligelinta Shamse waxaana uu ku yiri abaayo waan kaa walwalsanaa xitaa daraadda su'aalo badan ayaan isku weydiiyey maxaa yeelay ma aan garanaynin waxa adiga kugu dhacay. waa alxamdulillaah haddiiba aad hadda taleefankayga qabatay laakiinse waxaan ku su'aalayaa ma qadaysay mise weli wax maadan cunin. Shamse ayaa ku tiri Xamse maanta ma doonayo inaan qadeeyo. inta aan iskoolka ka soo bixin ayaan bajiyo iyo waxyaabo kale soo cunay. Xamse ayaa yiri bal waayahay waxaan rabaa inaan wax badan kula sheekaysto ee sideed u aragtaa haddii aan caawa WhatsApp-ka kala soo hadlo. Shamse ayaa ku tiri waayahay aboowe xilliga aad doontid waad ila soo hadli kartaa waxaa tahay wiil wanaagsan. sidii ayaa lagu ballamay qof kastana howshiisa gaarka u wahed ayuu hore u sii watay. waxa uu waqtiga u socdoba waxaa la gaaray habeen saacaduna waa 7 fiidnimo. Xamse ayaa bilaabay in WhatsApp-ka uu ka salaamo Shamse isagoo weliba u qorayo fariimo uu xaaladeeda uu ku wareysanayo. arrinta Xamse uu rabay in Shamse uu u sheego ma aysan ahayn wax uu awooday in maqal ahaan uu ugu sheego iska badaa inuu hor istaagay. wixii qoraalka lagu wada sheekaystaba oo xaaladda la iska wareystaba misana la kaftamay. Xamse ayaa markaan qoraal u qorayay Shamse isagoo ku leh xaqiiqdii abaayo dadku waad igaga duwan tahay. waxaan dareemayaa inaad qiimo dheer tahay gabdhaha saagaaga ani ahaan waxaan isku arkay inaan mar waliba xaggaaga aan ahay oo adiga ay nafsadeeda ay ku tabayso. intaa Xamse markii uu ku yiri Shamse ayaa waxay ugu jawaabtay aboowe maxaa dhacay oo qaldan anigase gabdhaha kale wax aan dheerahay ma jiraan sida aan isleeyahay. Xamse oo mar kale hadalka ku soo laabtay ayaa yiri Shamse waxaa tahay gabar qurux badan aniga nafteeda adiga ayay ku tabaysaa isla markaana ay ku dooratay. Shamse oo weli aan si fiican u fahmin ayaa iyaduna ku tiri aboowe rabitaan sidee ah. Xamse oo markaan isla wardoqon ha iska dhigine
bal ka faa'iidayso fursadda ayaa waxa uu yidhi, Abaayo waan ku jeclahay, weliba si xadaaf ah. Waxaan noqday maxbuus adiga kuu ciiloon, isla markaana raba mar waliba inuu kaa soo ag dhowaado. Intaan isbaran ka hor waxaan dareemayay qofnimadaada. Mar kastoo waddada aad soo marayso, waan ku fiirin jiray. Xitaa mararka qaar oo aadan waddada soo marin, waxaan dareemi jiray cidlo badan. Fadlan, iga aqbal jaceylkayga. I love you. Intaa markii Xamse uu yiri, Shamse ayaa la soo yara daahday jawaabta qoraalka, waxaana ay ku fikiraysay sida ay ugu jawaab celin karto Xamse maadaama sheeko ka weyn uu la yimid iyadana aysan hore wax jecel ah aysan u soo marin. daawade ama dhageystay intaa haynoo joogto qaybtii 5aad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. Inta qaybta xigta aynu ku wada kulmi doono nabadgelyo.